madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa waxa uu qorsheynayaa booqasho uu dalka Mareykanka dhawaan ku tagi doono. Booqashada madaxweynaha ayaa mar kale dadka waxa ay ka bixiyeen faahfaahin iyo sidoo kale tafaashiil ay madaxweynaha Somaliland mar kale dadka ku sheegayaan in Mareykanka uu aqoonsan rabo Somaliland. Trump uu si cad ku sheegay mar kale in haddii ay Somaliland ogolaato in loo soo wado ama loo soo raro dadkaasi Falastiiniyiinta in ay Mareykanka ka heli doonaan aqoonsi buuxa. madaxweynaha Somaliland ayaa haatan mar kale waxa uu qorsheynayaa safar uu mar kale ku tagi doono dalka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir ayaa sheegay in madaxweynaha safarkiisu uu daaran yahay wadaajinta iyo xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale aqoonsiga Somaliland oo maraya meel wanaagsan. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Salaad oo hadalkaasi ka sheegay dalka Mareykanka oo isagaba haatan ku sugan yahay ayaa sheegay in madaxweynaha Somaliland uu dhawaan imaan doono dalkaasi Mareykanka hase ahaatee haatan isaga uu ka soo hormaray sidoo kalena dalka Mareykanka iyo Somaliland ay leeyihiin xiriir aad u adag. dhawaana Somaliland ay soo dhamaatay rajadii ay muddooyin badan filanaysay ee ahayd in Somaliland ay Soomaaliya inteeda kale ka madax banaanaato. haatase la joogo xilligii lagu dhawaaqi lahaa kaliya in Somaliland ay tahay jamhuuriyad ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale. Somaliland ayaa muddo dhowr iyo 30 sano ka hor waxa ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyadoo sheegtay in ay la magac baxday jamhuuriyadda Somaliland. hase ahaatee ma aysan helin aqoonsigii ay intaasi ku taameysay muddo dhowr iyo 30 sano. Soomaaliya ayaa dhinaceeda iyada waxa ay diidan tahay in Somaliland loo aqoonsado. waxa ayna inta badan Soomaaliya ku adkaysataa in aysan ka wada hadlaynin Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliyana ay tahay hal. Somaliland ayna doonaynin inay mar ahaato dal madax banaan. Afrika ayaa inta badan laga ogoleyn in dalalka Afrika ay kala tafaraaruqaan iyadoo inta badan dalalka lagu adkeeyo in ay ka madax banaanaadaan gobolada ama dalkaasi markaasi ay diidan yihiin qowmiyadahaasi iyadoo dalalka Afrika sharciga u yaala u dhigaya inta badan in midowga Afrika dal ka tirsan uusan si sahal ah dal ugu goosan karin taasoo adkeynaysa in mar kale kuna adkeysay Somaliland dhowr iyo 30 sano in Afrika dhexdeeda Somaliland laga aqoonsado taasoo ay Soomaaliya inta badan ku adkeyso hase ahaatee muddooyinkii ugu dambeysay sidoo kalena uu soo noqday Donald Trump dalka Mareykanka mar kale uu ku guuleystay doorashadii dhacday November sanadii tagtay 2024 ayaa Mareykanka waxa uu muujiyay waa Donald Trump madaxweynaha Mareykanka firfircooni ku aadan dhanka Somaliland iyo xiiso uu qabo Somaliland in mar kale ay Soomaaliya ka madax banaanaato isagoo taasina ugu bedelanaya waxyaabo markaasi dalka Mareykanka muhiim u ah. Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhinac iyagana barbar taagan Soomaaliya oo diidan in Somaliland la aqoonsado iyadoo dalka Shiinaha uu mar dhawaan wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha oo hadlay uu sheegay in Soomaaliya ay jamhuuriyad kaliya u aqoonsan yihiin Somaliland ay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya aysan ogoleyn in ay ictiraaf ka hesho dunida inteeda kale. Taiwan ayaa dalka Shiinaha waxa ay inta badan sheegtay in ay ka go'satay iyadoo 80 dal ku dhawaad ay aqoonsan yihiin hase ahaatee aysan aqoonsaneen Mareykanka. haddana Taiwan ayaa inta badan waxa ay xoog saartaa in ay Shiinaha ka intooda kale ka go'do. Somaliland ayaa xiriir wanaagsan waxa ay leedahay Taiwan iyadoo ay ku midaysan yihiin dalalka ictiraafka aan wali helin ee sidoo kalena sugaya ictiraafka. hase ahaatee Shiinaha ayaa arrintan Somaliland inta badan ku dhaleeceeyay. si kastaba ahaatee lama ogo ictiraafka Somaliland inta uu sii jiro. Mareykanka ayaa la saadaalin karin waa Donald Trump in uu ka dhaweyn doono aqoonsiga Somaliland sheegaya sidoo kalena uu sheegay inuu ugu bedelanayo in Falastiiniyiinta Somaliland xageeda loo soo raro. dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda iska madax banaanida uu dhawaaqday Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo isagana la ogeen in dhinaca kale uu ogolaan doono ictiraafka inuu ku bedesho waxa uu Mareykanka ka doonayo. wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba.
CAB TV waa kaabaha bulshadeenna.